السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندين سلام يا دمان أصحاب تيدا شرفت بدن إيجو جرتو جنال كسيروق شيخ جنال وأنا بورسن شيخ محمد جنال كداون سنة واسدا إذن شيخ وسيروق شيخ وحيد اللي هاي سود وهذا أصحاب تيدا وإذا ولا كلام مقنع ما شاء الله خير يا بركة نور بلو كلام مقنع إلهي جل الرحمن وحي شرح نجاهيو وحي دباتنا الله الرحمن كانوا كما قنقلي بإذن الله الرحمن aad baa idiin salaamayaa waa idiin xiisay gabdhahaygii iyo wiilashaydii quruxda badnaa halka iigu jiray giddigood subscribe-ka ii ahaa intaba aan ka helayay aad baan idinkugu mahad celinayaa meel walbo aad joogtaanna waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan insha allahu biidni illaahi araxmaan laba wiig ama wiig iyo xoogaaba aan dhehe arrin baa laga hadlayay arrinta laga hadlayay dhowr jeer waa la ii soo diray sayruuqay maad ka soo hadashid janalkaaga maad maxaan ku dhahdaa wixii aad kaga qayb qaadan kartid ama kaalintaada aad kaga hadashid runtii waxaan jeclahay marka hore ka fiirsasho badan inaan galo si aanan wax qalada aanan dadka ugu baahin ama aanan ugu baahinin wax aniga hadhow igu soo noqonayo oo igu noqon doono waxaadan hubsanin haddii aan isdhaho wixii aad ku aragta facebookga la bood aad ku fiirsatid shilimaadka yarka ahee meesha ka soo dhaco aanan fiirinin sharafta iyo cirdiga iyo wanaagga shaqsinimadaada aadan eegin waxaa kuu dambaynaysa inaad wax walbaba ka hadashid marka dambena meel xun aad ku dhacdid social mediahu dadka ku jiro kama fiirsadaan inta badan erayga ay ka hadlayaan ama waxa ay ka hadlayaan laakiin facebookga hadal la soo dhigay ama waraysi ama wuxuu doonaba ha ahaade waxay jecel yihiin markiiba intay la boodaan inay ka hadlaan walow ay jiraan wiilal reactionna ka bixiyo heesaha oo kale kuwaasi ayagu waa gooni laakiin waxyaalo waxaa jiro hadda arrinta walaashay Safiya Tusmo kamaanan hadlin kilibyada waa la ii soo diray sawiraa la ii soo diray waxaa la yiri ka soo hadal sayruuqay asxaabteeda khayr fara badan allah idin siiyo laakiin ma degdegin oo ma fiirinin isla markiiba inaan u duceeyo oon dhaho walaashay culayska allah ka dulqaado dhibkana ilaahay ha ka dulqaado sidee iyadu jeceshahay oo wanaagana allah raxmaanka ha u yeelo intaa waxaan ahayn uma soo dhaafin Kawsar Keef oo abwaanadeena qaaliga ah oo nala degan dalka Canada gaar ahaan magaalada Edmonton baa kilibyo ii soo dirtay baraambaro ay ku taageerayso Safiya Tusmo oo ku soo shubay YouTube-kayga dabcan waad ka daawanaysaan insha Allah biidni illaahi raxmaan waxaa kale oo jiray in aniga la yiri yacnaha maadaama aad ka mid tahay abwaan miyihi laakiin igu tiriyaan dadku inaan hal abuur leeyahay maad ka hadashid arrinta Safiya Tusmo ama baraambar ka tirisid ama gabay ka diya ama wax un aad ka sheegtid qofka bini aadamka dhibka markuu ku dhaco ood aragtid in sawiradii la wadwado haddaad adiguna dhinacaada ka gashado hiddi hoobay aad dhahdid ama adiguna ado ama hiilo ku soo gelayo ama ayada garab siinayo ama cid kale siinaya garab haddii aad ku soo gashid oo hadalkaas adigu uu kaa baxo oo sawiradaas adigu ay kaa baxaan waxaa tahay dadka faafiyey unbaad ka mid tahay dadka faafiyey unbaad ka mid tahay marka waxaa qurux badan qofka haddii aad garab istaagaysid xitaa inaad ku garab istaagtid si wanaag ah si sharaf ah tan kale waxaan leeyahay wixii markaa la arkaba social media lagula soo ordayo idinka oonan hubsanin idinka oona eegin idinka oona fiirinin waxay kugu noqonaysaa adiga laftinkaaga wax dhibaato ah waxay kugu noqonaysaa adiga laftinkaaga wax aanan kaa haraynin janalkaagina ku jiro waxaa ka fiican hubsiinyo hal baa la siistay horta hubso waxaadan hubsanin intaad ka hadasho hadhowna ha dhihin maxaan ku idhaahdaaye hadalkan meesha in lagu jaro ayuu ku qurux badnaan lahaa markii horeba haddaad adigu soo qaadan lahayn haddaad adigu keeni lahayn dadka umaada maysan wada arki lahayn adaa bayaamiyey adaa caddayn saaray
adiga in la wada raadsada keenay shakhsi markuu soo qaado youtube-ka soo geliyo dhammaanteen waan wada raadinaynaa waayo shilimaad baa inoogu jiro fiirsashadaas yar ee lagu fiirsanayo waxaa inoogu jiro inaan annagu ku helayno maxay tahay views inaan ku helayno marka sharafta walaasha ama walaalka ha gadanin ha ku iibsan lacag ha dhaafsiisan waxaan macno lahayn ka fiirso marka hore tan kale idinkii oonan arkin gabadhii hadalkeedii qaadnay wiilkii hadalkiisa idinkoona arkin dembiilaan ka wada dhignay dembiyaan wada saarnay dabcan dembiyuu leeyahay oo marihii dembi ma laha sideeda bannaanba sababtay tahay waraysigii maanta dambe ee uu bixiyey iyo kilibkii uu ka duubay ee codkeeda ahaa intaba inuu bannaanka soo dhigo qalad bay ku ahayd sideeda bannaanba meel uu maanta ku helayo oo la leeyahay wiilkaas waa ku saxan yahay wiilkaasi wax saxoo sheegay ma jiraan waxay ahayd telefoonka markuu u diray ama codadka whatsappka ah waxay ahayd inuu hadalkii meesha ku jaro uusan hadalkeedii duubin uusan hadalkeedii qaadin hadday magaceedii iyo sharafteedii kula soo hoos gashay ooy kuu malaysay inaad hiil uga noqonaysid dembigii aad yacnaha ee ay dusha laga saaray ama ay iyadu tirsanayso in sharafteedii iyo magaceedii meesha ku baaba'ayo hadday kula soo magan gashay waxaad ka qaban kartid inaad ka qabatid bay ahayd laakiin dembi baad ku caddaysay se iyaduba sheegtay caybaad ku caddaysay se iyaduba sheegtay naag weynoo tumatay inay tahay baad adigu ka dhigaysaa se adiga kulata iyo se adiga u dhigaysid hadalkaaga meeshuu u socdo laakiin waxa meesha yaalla waxay tahay ilaahay baa inaga og kan saxan anigu ilaahay baa iga og ma garanayo laakiin saaxiibnimo baan iskula soconnay qabitaan ma jirin meeshaas fadeexe iyo foolxuma taallo safiya tusma wixii ka oohiyeyna ma ahayn wax yar oo sahlan wax meel soko intuu yaallo la dhihi karo waa wax fududna ma aha waa wax ka fiirsasho badan u baahan waa wax ka hadal badan u baahan waa wax dhimrin badan u baahan waxaan leeyahay marka yaan la isku degdegin degdega ha la iska ilaaliyo degdega walaalkaa ha ku degdegin walaashaana ha ku degdegin waxaad uga hadlaysid ha noqoto waxaad iyadu ah oo talo ah sawir baad soo qaadanaysaa waad saaranaysaa wiilkii hadalkiisii baad soo qaadanaysaa waad saaranaysaa gabadhii hadalkeedii baad soo qaadanaysaa waad saaranaysaa waxaasoo dhan waxay sii bixinayaan fidmo inuu wiilkan soo jawaabo adaa ku kalifaayo gabadhan inay soo jawaabto adaa ku kalifaayo qofka youtuberka ahow adaa kalifaaya dadka war youtuberiintow idinkaa kalifaaya dadka inay soo hadlaan inay jawaabaan inuu shaqsiga isdifaaco been iyo runba wuxuu isku difaacaba adigaa keenaayo haddaase adigu ka hadli lahayn ood meeshaa ku ekaan lahayd ma ay qaadqaadi lahayn dadka haddaad adigu social mediaha wareejin lahayn oo youtube walba uusan ka hadli lahayn inaad u hiilinaysaan baa idinka isu malaynaysaan safiya tusma laakiin uma hiilinaysaana waad dilaysaan uma hiilinaysaana waad dhaawacaysaan uma hiilinaysaana waad aflagaadaynaysaan adigu ka hadalkaa ka hadlaysid commentigaaga meeqa loogu qorayaa adigu ka hadalkaa ka hadlaysid meeqa qofaa ku daawanaysoo soo caayayso fiiri wax walbaba dib waxaa loo eegaa wixii adiga kaaga imaanayo wixii qofka kale oga imaanayo ma aha inaad eegtid keliya safiya tusma waa gabaran jecelnahay waa abwaanad waa fanaanad qofka abwaanka ah oo intaasoo hal abuur isku darsatay oo dhan walbaba ka soo gelayso maxaan ku idhahdaa hal abuurka soomaaliyeed ilaahaygii raxmaan ahaa waxaan u baryaynaa qalbigeeda inuu u dhayo in ilaahaygii raxmaan ahaa culayska uu ku dalqaado duco ayay maanta naga mudan tahay inaan u ducayno walaasheen qalbiga allaha u qaboojiyo qalbi waasac iyo niyad degan ilaahay ha siiyo intaasoo keliya laydinka rabay inaad samaysaan reer youtubeow laakiin waad qaadqaadeen waad wadwadeen 100 commentigiina ku soocayso commenti cay ah u yaallo baad arkaysaa 100 waxaad arkaysaa hadalladiinii lasii jarjaro meelo kale laga tuuray waxaa ka fiican waxaasoo dhan inaad dhahdid walaashay sawirkeedana soo qaadan maayo
wiilka islaameedna sawirkiisa qaadan maayo culayska iyagu haysta allah ka dulqaado culayska social mediaha qof la dhex keenay waxa waay dhibkiisuu wataa allahuma najina dhibkiisuu wataa qof social mediaha la dhex keenay ilaahay waxaanu ka baryaynaa ceebtaanu in ilaahay noo asturo social mediaha ilaahay inagama dhex keeno ceeb aan leenahay allah raxmaankaanu ka magangelaynaa idinkuna waxaa fiican mar walba walaalayaalo ka fiirsada dadkiina youtube-ka ku jiro dad culimo ahaa ku jiro dad aayad iyo xadiis daqiiqad u soo dareerinaya ayaa idinku jiro haddana codadkii ay soo qaadanayaan haddana sawiradii ay soo qaadanayaan fiiri annaga caamaan nahayba waxba ma naqaanaba dadka qaarkood caamo aan waxba garanaynin laakiin wadaadada ilaahaygii raxmaan ahaa uu cilmiga ku manaystay ee saacad maxaan ku dhahdaa u soo qaadanayo iyo daqiiqaday hadlayaanba maxaan ku dhahdaa kalimatullah soo qaadanayo maxaan ku dhahdaa xadiis soo qaadanayo rasuulkeeni ka warramaysa calayhi salaatu wasalaam iyo wax dadka looga celinayo xumaanta soo qaadanayo haddana sawir gabar leedaha soo qaadanaysaa shaashadaadaa soo saaranaysaa cod gabar leedaha soo qaadanaysaa shaashadaadaa soo saaranaysaa ma aha waxaa oga hadlaysid inaad leedahay walaashay waan ka damqanayaa annaga waxaanu eegaynaa inta rag ee soo qaatay waa difaacaysaan gabdhaha soomaaliyeed baad difaacaysaan gabdhaha soomaaliyeed baad leedihiin waan difaacaynaa laakiin maxaa habboon adoon gabadha sawirkeeda soo qaadan ka hadal adoon gabadha sawirkeeda soo qaadan magaceeda taqaanaa wax u sheeg waxaan leeyahay intaas youtube-kaan oga baxayaa waa anigoo warsan sheekh maxamed janalka daawanaysaana waa sayruuq sheekh janal waxaa idinkaga tegayaa khayr iyo barakiyo nuur waxaa idin leeyahay soomaaliyay siiba dumarow is ogaada damiirkayuu idinka dhiman